السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي soo dhawaada seetiin xaaladiina maanta halkaan uu ka bilaabanayaa rootiinkeena iyo afur diyaariskeena. meesha waxaan ku soo diyaarsaday kastarkeeni waatan ayadoo sidaan quruxda badan u soo diyaar garowday. xilligan adiga waa 7 saac marka waxaan rabaa inaan fridge ka geliyo ee ku jirto almost 5 hours camal markaas kadib la isticmaalo haduu aan la idmo. kadib waa kana hadda meeshaan waxaan ku soo diyaarsanayaa digaag aan la soo dhigay wixii caraf ahaayo dhan. kadib waa kana hadda saxankii aan saliid soo mariyay waan ku soo gurayaa. markaan sidaan u soo diyaarsado waxaan rabaa korka inaan uga daro khudaartaas dhadhan macaan badan ay siinaysaa. marka waa kana khudaarta hadda fridge-kan ka soo bixiyay waa galeydaas iyo khudaarta cagaarka ah waan soo biyo raacinayaa. markaan soo biyo raaciyo waa kana hadda anigoo ku soo daraayo markii loogu daro oo oven-ka la geliyo dhacaankii cagaarkaas oo dhan isku baxayaan ku dhahay waxaan la arago la maqalay ku soo bixaysaa maasha Allah. marka hadda sidaa markay diyaar noogu tahay oven-keenan soo shidaneena. oven-ka waxaan rabaa inay ku soo jirto saacad. marka hore hoosaan u shidayaa kadib 20 daqiiqo kadib baan haddana kor iyo hoos u shidayaa. marka oven-ka wuxuu ku jiraa waxyaalaha kuu fududeynayo inaad jikada dhaqso ka baxdid ama aadan daalin anna maanta oo dhan dabka ma la kor taagnaan kar laakiin waxaan inta oven-ka gelisa isaga tagaysaa. marka hadda markuu sidan diyaar noogu soo noqday haddana meeshaan waxaan soo sameysanaynaa rooti. hilibkii aan rootiga ku darsan lahayn waa kana rootigeeniyo sidaan usoo faxana waa kana aan isku soo dhex qasay. marka halkaana waxaan kusoo diyaarsanayaa burkii aan ka sameyn lahaa rootiga. marka waxaan rabaa intuu hilibkaas dabka iigu jiro inaan dhameeyo rootiga hagaajiskiisa oo markaan saas usoo bixiyo digaaga aan geliyo dabkiyo kulul. marka way kala fududahay markii dabka intaasaan u shidid 10 daqiiqo markuu shidanaado aa gelisid waqti yar dheer uu qaadanayaa. laakiin markii dabkiyo kulul oo wax hore ugu soo jireen aad gelisid wixii dambe sida hadda rootiga u gelin rabo kale 10 daqiiqo waxaan dhameyn ku soo karayaa. marka waa kana hadda anigoo saxankayga soo mariyay saliid halkaasaan ku soo safayaa. halkaas waxaan rabaa kulli inaan isugu geeyo 12 xabo ii noqday. marka alxamdulillah marka waa kana hadda anigoo soo dhameeyay oo saxankii soo wada saaray. meeshaan waxaan rabaa inaan soo mariyo ukun 2 xabo meeshaan waxaan ka daadiyay wixii kala shahar maalin waxaan ka daadiyay qaybta jaalaheed bisa ii soo hartay. waa kana sidaan quruxda badan u soo marmarnaaya. marka muhiim waa inaad dusha wax ka marisid hadii kale uu ka qalifayaa. hadii aadan ukunta jecleen xasaasiyad ku tahay ama markaas aad wax diyaarsataba aad aragtid inuu ku oolin ukun ay ku oolin ama si kaleba aadan u rabin bedelkeeda waxa gashan kartaa caano booro ama caanaha budada ah oo soo adkeysay sida hadda ukuntaan u yar adagtoo kala u soo adkeynaysa korkaas uga soo shubanaysa. markaad oven-ka geliso ka soo bixiso ukunta la mariyay ama caanaha la mariyay labadaba waa isku natiijo. marka hala soo tijaabiyo. marka waa kana hadda anigoo raba inaan oven-ka geliyo hilibkina aan raba inaan ka soo bixiyo oo hilibka saasta u soo bixiyo waxaan rabaa inaan geliyo digaag inaan geliyo rootiga. marka alxamdulillah sida quruxda badan uu ku soo baxay hal mar aan gelinay waa ka soo bixinay wax maanta oo dhan aan saliid ku ridaysid waaba iska deenay. marka waa kana hadda waxaan soo bixinaynaa oven-ka waxaan ka soo bixinayaa digaagi. Allahumma baarik digaag sidaas quruxda badan ay ku soo baxdo qudaartii wixii dhan aan ku dhahay way isku dhacaameen kaal iska arag. marka halkaan aan ku soo diyaarsanayaa weelka aan ku ridi lahaa. meeshaan afurna waan karinayaa markii afurka kariyana waan sii diyaarinayaa wixii oo dhan ana isku haayo. marka hadda halkaan aan ku soo guranayaa markaan baaquligan saan ugu soo gurto kadib waxaan sameynayaa oo kale oo rabaa asagan inaan weel kale ku soo guro basta macaroni waxaan rabaa ayada iyo hilibkan in la isla cuno haduu alla idmo. rootigaasna la cuno mandaasina waan kariyay mandaasigaas. marka waa kana hadda sidaan quruxda badan uu noogu soo baxay cagaarkii wixii dhan markaan dusha ka saaray oo saxanka cad aan ku guray waxaan ku dhahay bismillah lagama sheekeyn karaan ku dhahay indhuhu ka deeqaya intaadan cuninbo. marka waa kana hadda markaan sidaan u soo diyaariyay daboolkiisaan saarayaa. meeshaana haddana waxaan rabaa inaan soo diyaariyo basta macaroni cheese aan ku daray adduun oo dhan aan ku daray mar kale aan soo duubi doonaa insha Allah. waa kana asagana sidoo kale weelkiisaan ku soo shubayaa. meeshaana marna afurkii baan karinayaa marna afurkii aan diyaarinayaa hawsha oo dhan aad isku haya la faarahan. marka waa kana hadda basta macaroni iyo hilibkiiba anigoo soo diyaarsaday
kadib waxaan kaloo diyaarsanaynaa cabitaankeeni. meeshaan cambo iyo avocado iyo passion isku jiro. hadda waa kana asagana weelkaan kusoo shubtay qabow waa fridge-kan kasoo bixiyay waqtigan waxba kama harinbo afurki. waa kana hadda rootigeena uu noo soo karay sidaan quruxda badan uu kusoo baxan ku dhahay huruud asaga dhan maasha Allah. markuu hadda sidaan diyaar u yahay waxaan sameynayaa mid baan soo jeexayaa sidaan idin tuso sidoo kusoo baxay. waa kuleel laakiin hadda kuleel zaaid ma ahan xoogaha yara meel dhiga bal waxaan dhahay yara qaboobo inkastoo wili zaaid qaboobin u qiiqaayo. waa kaas labada dhinac sidaas uga soo baxay jileeca kaaga daranay macaanka. waa kaas sidaas uu kusoo baxay lagama sheekeyn karo. marka waxyaalahan waxay ka mid yihiin waxyaalaha hawl fududeeska marka hadda si qasitaanku waa isku mid asaga iyo waxyaalaha kale laakiin hal mar oven ka gelinay wax ka aamusaysa. marka hadda waa kana waxaan kusoo diyaarinayaa afur ahaan oo soo diyaarinayaa weelashan ku diyaarsan lahaa anoo saxankii kusoo shubayo. waa kana uu yara kululiye kullina wili ma kala jarjarin. hadda saasaan gacanteeda anaa kusoo jarjarayo lagama sheekeyn karaan ku dhahay afaarahan waana hawl fududees. ha la soo tijaabiyo ha laga warkeeno insha Allah. mandaasigan sambuuskan maalinkas jikada lagu dhimanayo lagu rafaadayo ha la iska daayo. marka hadda waa kana sidaan quruxda badan noogu soo baxay waqtigaana afurkii wallahi waxba kama harin inkastoo waxyaalahayga kala dhan aan diyaarsaday oo ii haro rootigan iyo wax kale maxay ahayn iyo wax kale ii haro marka inaan diyaariyo waxba iima harin. waan sii hagaajinay inkastoo jikada waqti dambe galay waan sii karinay markaan saas u soo bixiyana kululeysooyinka iyo weelasha ugu talagalaan sii saaraya maadaama ay qaboobayeen waqtiga afurka una wax saas ka harin uu diyaar ahaa. marka waa kana intaas kalena saxan kalaan ku guraaya. meeshaan hadda waxaan soo diyaarsanayaa kastarkeeni oo fridge-ka geliyay 7 saac baa xilligan kasoo bixiyay. marka asagana sidaan quruxda badan ku soo baxay lagama sheekeyn karo. waa kastar waxaas kalaan ku daro gaduudan waxaa waaye vimto baan weelka mariyay. markaan mariyaan kadib aan kastarka ku daray sidaas quruxda badan ku soo baxay. marka ha laga soo sheekeeyo ha laga wardoono fiintada iyo kastarka markii geliyo oo hadana fridge-ka la geliyo 5 saacadood camal sidoo u dhadhamo bal hal ii soo sheego kulli anigu waan jeclahay inaan sidaa isku dhex gashto oo maxaa la dhahayo aan isku cabo intaan geliyo. marka xilligan afurkayga dhan waa diyaar wixii dhan waan soo dhameystay jikadii weelashii raa iga yaalan iska soo dhaqay jikadii iska soo hagaajiyay. waxaa la dhahay jikada mar hadda ka bax kuma soo laabanayo mac salaamo. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fi amaanillah bye.